السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعد تفتح أحمد جامعة يوتيوب كدا ونايسان وعد تفتح التري ولا ليجا معانا كسر هذا مقال كان عصب إن أنت مراد له أنت معناها وناك رجينيسو أنت ما أنت إسله جر أي ديار وحن إلها أوبريايا جر وناك سن أنت حنون سن وحن إلها أوبريايا عافمات أنت أمور له أو معناها دنا له أو شقة رجينا إليه وحن أقول رجينا شقة إليه شقة ذا سنة وسالة إن أنت سدان وجود إن شاء الله مقال كاني وحن أقول هذا دونا لح قف إن الله رش هذا أكف ويسد كو قفك حنت بدن قفك حنت بدن حنتو كل سر راس ده معلم والبا مركو إسك كادي جايا قف عدل كشعل لكن قف كلا أيكو كور حنت مر والبا دينتنا ما يسنشيجين إن لا إسحنته حنتنا وحاران mana wanaagsano haddii aad qof xamatina waxaad limitahay adigoo walaalkaaga miidkiisa aad cunaysid qofkan wuxuu jecel yahay inuu mar walba qof kula xanto oo kaaga sheekeeyo qofkan waansaan xumaantiis oo mar walba ka hadlo wuxuu jecel yahay adiga inuu kuu sheekeeyo adigana dabcan inaad wax soo dhaxgelisaa meeshii markaad wax soo dhaxgelisid ama hadal aad soo dhaxgelisid waa qasab inuu sheekadii ka qaado ama hadalkii uu ka qaado qofku kula xamanayay inuu u geeyo isagana uu ka sheekeeyo ku sheekeeyo ay dhahaa Soomaalida kan labaad waa kan jeebkaaga lacagtaada jecel oo mar walba lacagtaada mooyaane inaad lacag haystid mooyaane wax inta kala soo ku rabinba markuu jeebkaaga qoyahay ku soo daba ordaayo meel walba kula aadayo danaha kula oofinayo laakiin maalintu lacag ka waayana wadanihiisa ka raaco qofka noocaasna noloshaada waa laga fogeeyaa qofka saddexaad qofka iska dhiga inuu aqoon badan yahay oo mar walba iska ka dhigayo inuu macnaha wax walba inuu iska jawaabo waxaan u aqoonaysan jirin adiga marka isdhaadid kala wax ka jawaab ka hor istaago qofka sidoo ku garan kartaa qofkaad waxaad ku garan kartaa inuu macnaha kala wanaag wax sheeg markaas dhaadidba inuu afka ka xirto hadalkiis mooyaan hadal kale uusan jirin wuxuu iska ka dhigaya qof aqoon badan oo macnaha wax adduunka wax walba u daashay qofka kaasna waa la iska ilaaliyaa qofka afraad waa qofka xumaanta abuura heelada dagaalka abuura mar walba wuxuu jecel yahay inaad qof la dagaashid mar walba wuxuu jecel yahay inuu dagaal abuuro wuxuu jecel yahay asoo alla la socotay inuu qof la dagaalo oo mar walba adiga dagaalka kula jirtid oo xumaantaada kula raadiyo isaga xumaantiisa adiga uu ku soo dhaxgeliyo dabcan waa isdaba socotaan wuxuu dandaansanaya qofuu dandaansanaya kibir sanku ku socda marka in qofka noocaas noloshaada waa laga fogeeyaa waayo wuxuu ku ciyaaraya sharaftaada iyo dabeecadaada oo uu ku ciyaaraya mar walba mana wanaagsan inaad la socotid mana wanaagsan inaad saaxiib ka dhigatid qofka noocaas noloshaada waa laga fogeeyaa qofka shanaad qofka waqtiga ka lumiyo qofkan u fiirso laba u kala qaadaya midaan laba ayaan u kala qaadaya qofkani waqtiga inuu ka lumiyo ayuu rabaa shaqadiis dabcan meherad baad ka shaqeysan labadiina isagana meherad buu leeyahay adigana meherad baad leeyahay ama isagana meherad ma lahan oo meel buu iska jooga hadba say noqoto qofka marka wuxuu rabaa markuu damihiisa soo dhameysto waqtigiisa uu soo dhameysto waqtigiisa uu soo qaato wuxuu rabaa inuu waqti adag kugu lumiyo u fiirso especially wuxuu kugu soo aadinaya marka adiga aad waqtigaaga inaad isleedahay kale ka faa'iideyso dhan walba ha noqoto isku ka soo aadinaya waxa isdheesanayo ninkan muxuu ahaa ninka waa saaxiibkaaga ma dhihi kartid in waqti hayga luminaya ka ciga tag marka uu ku maamulinaya waxa macna leh inuu kaaga sheekeynaya ama wuxuu ku leeyahay kala isla ciyaarno ama wuxuu leeyahay siyaasadu kaaga sheekeynaya ama wuxuu kaaga sheekeynaya adiga waxaan dantaaba ku jirinba qofka noocaas noloshaada waa laga fogeeyaa qofka lixaad waa qofka niyad ka neceb macnaha qofka afku ka jecel yahay niyadinu ka neceb yahay uu ku imaadaya qofka uu ku sheekeynaya afkaas maanta dhan wuxuu ku leeyahay saana tahay sidana tahay wax aan loo joogin oo ku tilmaamo adiga waxa isleedahay ninkan waa nin fiican dabcan waxa la iskugu imaadi karaa meel xalfad ah ama aan xalliyi karaa ninkii saaxiibka orno soo kaxay ma soo kaxaynaya ma dhahaya inuu ku imaado wuxuu ku leeyahay war adigniyo meesha ma aadi kartay Soomaan
ku yasaya qofkii uu yasmo Allah yasmo uu ku yasaya qofka noocaasna noloshaada waa laga fogeeyaa waayo ma raba inaad macnaha dadka ka soo dhex muuqatid uu ku yasaya mar walba marka ay timaado adiga xaalad ay timaadana uu kula soo ordaya wuxuu ku leeyahay saana loo baahan yahay waxana loo baahan yahay lacag loo baahan yahay ama ad qaraana loo baahan yahay uu kula soo ordaya markay timaado tol iyo wax kale ay timaadana ina adiga meesha soo dhex gashid ma rabo uu ku yasaya yasma Allah qofka noocaas marka qofka haduu ku yasaya kuma wanaagsan muhiimadda inta ugu hadlayno lixdan qof runtii haday noloshaada ay ka mid yihiin ama aad saaxiib la tahay ama adiga aad ka mid tahayba fadlan iska bedel hadii aad ogtahay in saaxiibkaaga uu sidaan u yahayna fadlan ninkaasi iskaga fogow wax oo ku soo kordhinaya malahan walaalahayga waxaan codsanayaa subscribe-ka inaad isartaan mar walba waxaan jeclaa inaan isbuuci 2 mar aan video soo geliyo ama 3 mar aan soo geliyo way noqon waysay muuqaaladeeda ugu horeeyay 3 mar 2 mar ayaan soo gelinaya hadda ku fadhigii ayaa dhamaaday marka ninka ragana waxa wanaagsan inuu shaqeysto shaqadii lagu laabtay guriga la joogayna ma jirto marka waxaan isku dayaa isbuuci inaan 2 video soo geliyo hadaan soo gelin waayna isbuuci inaan mar video soo geliyo way iga raalahanaysan dad badan waxay leeyihiin Facebook ay la soo xiriir waxay leeyihiin reaction ma soo bixisid heesa ma reaction ka soo bixisid dabcan dadkaasi walaalahayga macaan wad mahadsantiin dhiirigelintiin laakiin aniga dan miyigu jirtaa waa inaan heesa reaction ka soo bixiyo waa may heesa reaction kama soo bixin karo runtii laga hadlo dantayda ma ahan mustaqbalkayga ma maxaan ka faa'iidaa aan heesta war qofkii heesta soo saaray hadhow markuu u baashaal raaxisto wuxuu ku leeyahay heesii waan ka tooba keenay waay uu tooba keenay aniga anoo heesinin hadii heesiis aan qiimeeyo oo aniga isku soo daro is dhaqaajiyo ninkan sidaan uu dhahay aan reaction ka bixin maxaan ka faa'iidaa طبعا hadii aan sidaas aan macnaha views ku helayo ama aan ku helayo subscribe wallahi iska ahaato waa soo jiitamayle tartiib la soo jiitama aniga laakiin hadafkayga inaan ka dhameeyo aad baan u jeclahay khayr baa in rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh